bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal ku soo dhawaada akhbaraadkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha oo aad kala socotaan xogta ciyaaraha Channel. Kooxda Barcelona waxa ay ku dhawaaqday in ciyaaryahankooda dhanka weerarka uga dheelay Luis Alberto Suarez oo garoomada ka maqnaan doono 4 ilaa 6 asbuuc kadib dhaawac jilibka ah oo soo gaaray ciyaaryahanka. Ciyaaryahan Luis Alberto Suarez ayaa seegi doona saddexda kulan ee ugu dambeeyay xil ciyaareedka uu ku jiro markaasi finalka Copa del Rey ee kooxda Barcelona ay la dheeli doonto kooxda Valencia. war rasmi ah oo ka soo baxay kooxda Barcelona ayaa sida lagu xaqiijiyay. ciyaaryahanka kooxda Chelsea ee weerarka uga dheelay Eden Hazard ayaa sheegay in uusan ogeyn mustaqbalkiisa kooxda Chelsea halka uu ku egyahay. mar la weydiiyay su'aal ahayd in kulankii xalay uu dheelay ee Europe League uu yahay kulankiisii ugu dambeeyay ee kooxda, waxa uu sheegay in aanu garanaynin taas, laakiin asagu uu focus ka saarayo ama uu diiradda saari doono sidii uu ugu guuleysan lahaa kulamada soo socda. Eden Hazard ayaa wariyaasha su'aal ka weydiiyeen ciyaarta kadib mustaqbalkiisa kooxda, laakiin waxa uu yiri ma ogi aniga sida ay noqon doonto inuu yahay kulankii ugu dambeeyay in kale, laakiin waxa aan doonayaa inaan isku dayo inaan ku guuleyso kulamada soo socda ee kooxda Chelsea. ciyaaryahan Eden Hazard ayaa waxa la xiriirinayaa kooxda Real Madrid oo wararka soo baxaya ay sheegayaan in kooxdaasi ay heshiis la gaartay, isla markaana ay Chelsea iyo Real Madrid ka wada xaajoonayaan sidii loo dhameystir lahaa heshiiska ciyaaryahan Eden Hazard oo ugu biirayo kooxda Real Madrid. ciyaaryahanka qadka dhexe uga dheela kooxda Barcelona ee Ivan Rakitic ayaa kooxda Inter Milan oo muddooyinkii dambe xiiseynayay waxa ay ku qaadanaysaa lacag gaaraysa 50 milyan oo pound. qadka dhexe ee kooxda Barcelona Ivan Rakitic ayaa ku sii dhawaanaya in 50 milyan oo pound uu ugu biiro xilli ciyaareedkan kooxda Inter Milan, iyadoo markaasi uu burburinayo 5 sano heshiis ah oo ku sii joogi lahaa garoonka Nou Camp kooxda Barcelona ay ku dhasho. finalka Champions League iyo finalka Europe League waxa haatan wada jooga 4 kooxood oo England ka dhisan, iyadoo Ingiriisku uu noqonayo dalkii ugu horeeyay taariikhda oo 4 kooxood oo markaasi ka wada dhisan ay isugu yimaadaan finaalaha Europe League iyo Champions League. waxaana markaasi haatan ay u muuqataa kooxaha Ingiriisku in ay awood dheeraad la soo baxeen marka loo fiiriyo ciyaarihii soo laabashada cajiibka lahaa ay soo bandhigeen dhowrkii kulan ee ugu dambeeyay. xalay ugu dambeysay kooxaha Arsenal iyo Chelsea ayaa isugu soo gudbay finalka Europe League oo ay wada ciyaari doonaan 29 bishan aan ku jirno ee May, halka finalka Championka la ciyaari doono 1 bisha June ee fooda nagu soo haysa. daawadayaal akhbaraadkii ugu dambeeyay ee dhanka ciyaaraha inta ayaan ku soo gabagabeynayaa waxyaabihii soo kordha dib ayaad kala socon doontaan xogta ciyaaraha Channel ayaana idin la diyaara insha Allah.